بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان وحو كسعدا أما أخاس يهي والدين الصوماليات قربها كنول قربها مركا أن لينها وحويان وحي مركاسي الصومالية كبحسن مركا يعني هي أين السامين كوي يلان كرتلوقات كلو الجنبي إن والد كان أي كلفته إنو عرورتي مركاسي أكلها الله سامين تأرينتها إلا هذا وحن كأرقنا والدين صوماليات يعرورتو ديون اسفهمين hooyadii hadlaysa ilaa yaraantoodii kuma inaan soo hadlin afka Soomaaliga ah ma inaan soo barin afka Soomaaliga ah kadibna maxaa dhacaya in caruurtii hadda 13 iyo 12 iyo markayba soo dhaafaan yaanihi ay isfahmi waayaan macnaha gabadhii markaa ay dhashay ama aabihii dhalay yaani sidaa darteeda luqadaada waa yaani kaarkaadi aqoonsiga ah maxay macna ma sameynayso inaad Soomaaliyan ah magac ka dhahdo oo aadan afkii Soomaaliga aan caruurtaada inaan garanayn ama inaan ku hadlin macna ma sameynayso tusaale ahaan waa inaad ka duwanaataa ilaan Soomaalinimadu waa maxay boqolaal ku eega jirta adduunka ku nool boqolaal muslimiin ah joogta adduunka ku nool Soomaalinimada waxa kuugu weyn aad haysato waa maxay waa luqadda macnaha luqadda waxa ugu weyn qofkan muujinaya inuu Soomaali yahay waa islaamnimada dabcan waa wadankiyo aad u dhalatay dabcan waa yaani sidoo kale waa luqadda marka caruurtii hadaynan markaasi aadan ku tarbiyeen marka ay yirihiin aadan luqadii aadan fahansiinin muhiimadeeda iyo aadan barin oo aadan ka dhaadhicin ilaa u fiirso wadan hebelaad imaatay wadankaasi wuxuu jecel yahay waa maxay oo iskuulada ka dhacda inta badan waxay jecel yihiin in caruurta ay ku hadlaan waa maxay luqadda wadankaasi oo intaas oo familian aragnay ee iskoolku macnaha macallimiintiisa ay ku qasbaan waalidiinta ay dhahaan guriga loogu hadlo luqadaasi macnaha oo aad wadanka joogtaan yaani imisan arag way tiro badan yihiin sidaa darteeda miyaadan awood u lahayn inaad ilaashato luqadaada xataa ugu yaraan marka aad guriga joogto ilmaha inaad kula hadasho miyaad awood u lahayn miyaysan sidoo kale ahayn dadnimo xumo yaanihi qofkan waalidka ah in caruurtiisa markii iskuulka ay joogaan banaanka ay joogaan ay luqadii ku hadlaan dabcan oo haddana guriga marka la yimaado yaanihi xiriirka u dhaxeeyo inuu noqdo luqad kale oo ajnabi oo waalidkii macnaha ilmihiisa uu kula hadlo waa maxay luqadii ajnabiga ahayd ونن فهنسنين بوالدك بلارugsaneen gormaad kacaysa gormaad balaarugaysa marka waxaan leeyahay waxay tahay insha Allah ta'ala inaan noqono ama waalidiinta ay noqdaan kuwa markaasi yaani luqadaasi Soomaaliyeed xafido ilaaliya oo aynan noqonin kuwa markaasi caruurtooda kula hadla luqad khalaad taasoo keeni doontaan waa maxay xataa diintii ilmaha inay macnaha noqoto mid yaani ay garan waayaan meel ay ka qaataan ay heli waayaan meel ay ka qaataan marka aad cunigaada aad مثلا يعني نيذرلانديس أما إسبانيش أما معناها سويدش أما محنكو لها يعني إن أدبرت يعني لو خذها النرويجين وحي لا متكاد المها هذا كلي وح أيهن وح يكون هذا وحي لا متكاد طبعا اللي خذها مركا يكون كلي أيهن المها هذا وح يكون هذا يعني معناه هذا وحوا إن عرورتي برتي مثلا أما أي عرورتي نقنا ينوام محي كل خدها سكرية فهمة معناها أي ساميسو نلشوا دي معناها فكر أهان دخن أهان وفيرسو معناها عرورته حتى أغيران يعني معناها يعني لو خذوا حيالي كعبين سواء محي إنه خوف كان دخن كي قرته وفكر معناها وفكر خوف سومالي أهان إنه خوف كان ناخذ خوف يعني وحياله بدن أي كعويسة سيدا درت الوالد سومالي هداتها مسؤولية ده وحا كمد الدين تأد المها هذا بريسو كسكو لو خد هذا الصوماليات وحا كاسر مسؤولية أدوين وهو لو خد هذا عليك ضيعه هذا ودن كاني maxaan ku dhahay yaani sidaan waa macnaha aad eedayso wadanka cidii joogtay ama aad ku tilmaanto wadanka inay macnaha yaani sida uu yahay adigina luqadii Soomaaliyeed caruurtada ay ka lumayaan aday ku tahay yaani maxaan ku dhahay nusqaan ii liidasho han noqonin waalidka caruurtiisa ee isfahmi waayaan han noqon luqadaada ilaasho waxay ka mid tahay macnaha yaani sharciyada ama maxaan ku dhahay aqoonsigaada ay ka mid tahay waana aqoonsigooda ka mid tahay إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها
لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها.